السلام عليكم أصحاب توادي سلامي كسو دوادا يوتيوب channel كيغا أصحابي ما أنتو حاروا إنا إذن شرحو قل تفاح محلها السيابة وتقاني السيابة كدوغن إن لو استعمالي كرو قل تفاح horta inta badan dadku isku caateeyaan oo maxallaha waa isku caateeyaa laakiin maanta sida u taqaani si ka duwan oo isticmaalkeedana maxallaha ma sha Allah aad u fiican yahay oo adigana uu ku anfici doono aan rabaa inaan idin kugu sharaxo qal tufaax horta waxyaalo badan uu anfacaya nabraha wajiga ka soo baxo kaleeto nabrahaas uu baabi'inaya wajiga dulduleelada leh midna qofka nabraha ay ka soo baxaan wajiga dulduleelo ay ku reebaan oo kala dulduleeladaas maxallaha uu suulinaya oo wajiga ma sha Allah baby amal uu ka dhigaya qofka wajigiisa hooyada naaska nuujiso kaleeto aad iyo aad u anfacaya hooyooyinka naaska nuujiya waxa idin leeyahay qal tufaax maanta maxallaha insha Allah haday farinta in soo gaarto waxaan rabaa inaan maxallaha aad ka faa'iideystaan waxay hooyada naaska nuujiso kale oo naasaha isbedelayaan oo waxaan waa jirka bini'aadamkana mar walba isbedelaa ama qofka markuu caato kaleeto jirka yani wuxuu noqonayaa maqaar oo maqaar marka laga yaabo inuu maqaar yani kadkaduud inuu noqdo marka hooyada naaska nuujiso kaleeto ma sha Allah haday naasaheedu way marinaysaa macabayso way marinaysaa ama baqaaqana loo isticmaalaa insha Allah gadaal in kaga sharaxi doona hadii mesela hooyadan hal naas bis ay canug nuujiso oo naaskaas uu mesela u dheeraado kaleeto halkaas naas bis ku yareyn kartaa ama labada naas sadeertu iska yareyn kartaa maxallaha garbaha kaleeto qofka caatoowo maqaar qofka ka noqda garbaha yani markuu ka caatoowo garbaha kale maxallaha asxaabi oo isticmaali kartaan oo garbaha ma sha Allah maqaarkaas oo dhan uu yareena qal tufaaxa qoorto kaleeto dada jira maxallaha markay caatoowaan ayagana maqaar ka noqdo bardu dadka waaweyn oo da'da ah oo ayagana maxallaha qoorta iyo wajiga ka kadkaduuto kaleeto yani kadkaduudkaas uu baabi'inaya oo wajiga ma sha Allah ka dhigaya duqnimada maxallaha aad ugu fiican yahay ama dadka duruufaha soo wajaho kaleeto oo wajigooda yani ayagoo gaarin laakiin oo kadkaduud ka noqdo wuu anfacaya marka insha Allah biidinillah hadda waxa idin sharaxa sida loo isticmaalo oo intaasoo maxallaha aan idin soo sharaxay siyaabood oo kala duwan sida aad ugu isticmaaleysaan waxa u baahan tahay number 1 baqaaqana u baahan tahay oo buufiska ah kolba ani baqaaqa u aqaana adinku waxa u taqaaniin insha Allah hoos igu soo qora baqaaqana u baahan tihiin number 1 yani qoorta iyo wajiga uu ka duwan yahay laakiin qoorta iyo garbaha iyo xabadka saddexdaas baqaaqana u isticmaaleysaan hadda waxa ku shuwana qalka ku shubaya marka qalkaas uu shubatid waxa sameynaysaa xilliga kolba hooyada ee naas nuujiso ee canugeeda ee naas nuujinaynin hal saac iyo 2 saac inta ku hayso ka qabaysan kartaa baqaaqan saana ugu buufinaysaa kadib maxallahay waa ku masaajeynaysaa hadaartidna maxallaha inta ku buufisid si tartiib ah ugu masaajeen kartaa ama waa iska deyn kartaa laakiin muhiimadda waa inaa wada gaarsiisaa meesha oo maqaarka jirkaada maqaarka yani kadkaduudka uu ka noqdo si fiican maxallaha inaa ugu buufisid baqaaqa aa u gaarsiisid muhiimadda taas waaye kadibna hadda iska dhaqdid insha Allah 2 week natiijada aa ku dareemaysaa insha Allah biidinillah dadaalkan adiga laga rabaa wax horta maxallaha wax kasta dadaalay u baahan yihiin waa kaas insha Allah qaybta labaad oo wajiga maxallaha waxa u baahan tahay hal furle wax badan ma ahan wajiga yani oo dadka intee nabra ka soo baxaan fimanka yani kadib dhaawac ay ku reebaan oo kala rag iyo dumar rag oo kale xitaa waxa rag badan oo waxa jir wajiga yani nabra intee ka soo baxeen ayaga naftirkooda wajiga shabaq ka noqday oo maanta yani jeclaan lahaa waxay iskaga baabi'iyaan maxallaha hadii ay heli karaan way jeclaan lahaayeen waxaan rajaynayaa ayagana fariinteeda inay gaarto wajiga saasa loogu masaajeynaya tiishowgana u baahan tahay tiishowgana wajiga loogu talagalay kadibna saana usoo qaadanaysaa saana ugu masaajeynaysaa wajigaada ma sha Allah waa gaarsiinaysaa meesha yani hadii wajigaada uu yar yahay oo qof yar wajigaada qalka wajigu uu caateeyaa waxa idin leeyahay dadka wajiga cayilan oo kale oo iskaga oo rab wajigood inay yareeyaan way ku yareysan karaan so dadka oo wajiga maxallaha dad waxa jira waji yar oo rabin maxallaha wajigooda inuu maxallaha yaraado kaliya dadkaas waxaan ku dhiirigelinayaa meesha ayaga ee nabraha ama meesha oo dhibka uga yaala bas inay mariyaan oo wajiga dhan aysan wada gaarsiinin
taas aniga dadkaas aan kula talinayaa dadka wajiga cayilan dadka wajiga ka duqooway maasha Allah qalka wuxuu yareeyaa yani wax kasto wajiga ha noqoto garbaha ha noqdo xabadka meel kasta oo jirka oo la mariyo maasha Allah wuu yareynayaa waqti badan kugu qaadanaysa natiijada 2 week haddii aad rabtidna maasha Allah sidaada hore isa ka fiican inaad kusoo laabatidna ilaa iyo bila isticmaalaysaa. Assalaamu calaykum asxaabta waa idin salaam khayr badan.